السلام عليكم أخواتي من الواجبين ومركلين مقال عصب أكو يقدرنا وركي قدام بي السوق كليبسي أخبارات كحلقة السوق اللي قدي بانجلينيو كيف دي بروين أو مركان ودقائق كردان كاي MLS حل اللاعب كلهم مقعبة فادريسيو كيسا مركان ودي بيقولنا قني هريال كتلك التليانية يسقوا حسين يعني kooxa waaweyn Barshi Arsenal oo isku haysta wiil u ciyaara kooxda Aston Villa Liverpool oo dardar gelinaysa sidii ku heli lahayd ninka lagu magacaabo Maguire Haaland oo doonaya inuu ku biiro Real Madrid hadii uu ka dhaqaaqayo gegida Etihad Stadium Manchester United oo markaan rabtay inay afduubato Alphonso Davies hadii aan muuqaalka ka hesho la garay kanaalkana subscribe noo sar hadii aan ku bilowno akhbaaradkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta Liverpool wiilka xil ciyaareedkan ee la soo wareegeen ninka lagu magacaabo Fabrizio Chiesa ninkan ayaa markaan laga yaabaa inuu dib ugu noqdo horyaalka dalka Talyaaniga isagoo markaan xiise ka heliya kooxaha kale ah AC Milan, Rome iyo Inter Milan dhamaantood saddexdan kooxood Talyaaniga ay ka wadajisiin waxayna rabaan ninkan inay dib ugu soo celiyaan horyaalka dalka Talyaaniga sidii daawacaysa majalada caanka ah ee lagu magacaabo Gazzetta dello Sport marka Fabrizio Chiesa waa laacib xil ciyaareedkan 12 milyan ugu soo biiray Liverpool dhanka Juventus haatan maadaama ninkan uu kursiga keedka galay welina uusan helin fursad uu isku soo saaro markaan kooxaha Talyaaniga ka dhisan sida Milan iyo Inter lagu daray Rome waxay xiiseynayaan ninkan waxayna rabaan inay dib ugu soo celiyaan dhanka Serie A laacibkan ayaa waqti ku soo qaatay gegida Turin ee Juventus ay ku ciyaarto iyo dhanka iyo kooxda kubadda cagta Fiorentina marka kooxaha reer Talyaani haatan ninkan ay doonayaan inay dib ugu celiyaan dhanka iyo horyaalka dalka Talyaaniga Liverpool macalinkeeda Arne Slot wali wuxuu doonayaa ninkan inuu jaanisiyo walow haatan kooxaha reer Talyaani ay ku gashanayaan sidii ninkan ku soo xirigelin lahaayeen dhinaca kale kooxda kubadda cagta Liverpool akhbaaradkeeda qayb waxa ka ah difaaca kooxda Crystal Palace kabtanka lagu magacaabo Maguire ayaa markaan xiise ka helaya kooxda dhowra oo Newcastle United qayb ka tahay walow haatan Liverpool ay dardar gelinayaan sidii ninkan ku soo xirigelin lahaayeen iyaga oo raba markaan inay ku soo daraan qalcadda Anfield difaaca xulka Ingiriiska iyo kooxda Crystal Palace ayaa lagu qiimeeyaa lacag gaaraya 90 milyan Liverpool ayaa haatan diyaar u ah Maguire inay soo qaataan waxayna rabaan bedel inay ugu dhigaan Virgil van Dijk oo mustaqbalkiisa garoonka Anfield oo mugti weyn u hareynayo laacibka reer Holland ayaa lala xiriirinayaa inuu iskaga dhaqaaqayo gegida Anfield ee Liverpool ay ku ciyaarto laakiinse Liverpool ayaa haatan doonaysa inay soo xirigeliso ninka lagu magacaabo Maguire oo ciyaara Crystal Palace dhinaca kale tan labada kooxood ee kala Arsenal iyo Barcelona ayaa markaan ku dagaalamaya wiilka lambarka 9 ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ninka lagu magacaabo John Duran oo xil ciyaareedkan wacdar ka dhigaya gegida Villa Park Stadium ee ku ciyaarta Aston Villa xerta hogaamiyona Emery laacibkooda la yiraahdo John Duran markaan xiise baan ayuu ka helaya Camp Nou kooxda ka dhisan ee Barcelona haatan waxa ku soo biirtay dagaalka kooxda la yiraahdo Arsenal oo markaa rabta lambar 9 inay suuqa ka soo qaadaan John Duran oo xil ciyaareedkan Aston Villa la wacdareynaya ayaana markaan si saa'id loo doonaya xitaa ninkan Chelsea ayaa doonaysa oo diiwaankeeda uu ku jira laakiinse Arsenal iyo Barcelona ayaa haatan laba kooxood si saa'id isku haya ninka lagu magacaabo John Duran oo Aston Villa u ciyaara laacibkan ayaa markaan waxa la leeyahay wuxuu ka dhaqaaqi karaa Aston Villa isaga oo markaan dalabyo ka helaya kooxo waaweyn oo qaaradda Yurub walow kooxda Aston Villa ay doonayaan laacibkooda inay sii celiyaan dhinaca kale tan laacibka lagu magacaabo Arda Güler akhbaarat ayaa ka soo baxaya ninkan Manchester City ayaa diiwaanka ku tirsatay waxayna rabaan inay bedel uga dhigaan ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne oo dhanka Sacuudiga iyo Mareykanka aad looga xiiseeyo sida daraadeed laacibkan haatan waxa xiiseenaya kooxaha Liverpool iyo Arsenal warbixinta xalay muuqaalkiina horena waa ku sheegnay haatan akhbaarat kale ayaa ka soo kordhayo majaladaha ugu waaweyn ee daawacayaan sida majalada caanka ah ee lagu magacaabo Football Insight haatan ninkan waxa la leeyahay gegida Bernabeu waa laga soo dhaqaajinaya walow Madrid ay diyaar u yihiin Arda Güler inay iska iibiyaan Arsenal iyo Liverpool ayaa haatan isku dayaya sidii ninkan kaga soo qaadi lahaayeen garoonka Bernabeu ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Real Madrid marka Arda Güler kooxaha Ingiriiska ka dhisanaya si saa'id u xiiseynaya Liverpool iyo Arsenal City oo u aragta bedelka Kevin De Bruyne dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta Shayaadiin Xumra Manchester United ayaa markaan waxay dardar gelinayaan sidii ku soo xirigeli lahaayeen wiilka qandaraaska inuu u kordhiyo u diiday Bayern Munich ee lagu magacaabo Alphonso Davies si cad ayuu u yiri wax qandaraasa ma kordhinayo free ayaan ku dhaqaaqaya Manchester United ayaana haatan dardar gelinaysa sidii Madrid ninkan uga dulqaadi lahayd oo waxay rabaan Old Trafford inay keenan maadaama Lucas Shaw ay rabaan inay bedel uga dhigaan maadaama ninkaas dhaawacyo badan iska daba dhigteen Manchester kulamada qaar waxa booska ciyaaraba ninka lagu magacaabo Dalot sida daraadeed Real Madrid
iyo iyagu ninkan ay isku hayaan. Real Madrid ayaana ugu cadcad ninkan wuxuu rabaa inuu Madrid ku biiro, laakiin Manchester United ayaa isku dayaysa ayaa la leeyahay sidii ninkan kaga dulqaadi lahayd kooxda ka dhisan qalcadda Santiago Bernabeu. Marka Alphonso Davies markan waa la isku hayaa. Manchester United waxay taagan tahay hadiiba ninka free lagu helayo anaguna dhankeena waa inaan ka shukaaminaa oo aan ku qancinaa sida Old Trafford ku imaan lahay. Bayern Munich hore Manchester waxay ku soo qaadeen De Ligt iyo laacibka lagu magacaabo Masraoui oo labadoodaba ah laba nin oo difaaca ka ciyaara. Haatan waxay rabaan Alphonso Davies inay ka soo xirigeliyaan maadaama ninkan uu qandaraaska Bayern Munich oo haatan dhacayo isaguna oo diyaar u ahaynba in Bayern Munich oo qandaraas cusub oo siiyo. dhinaca kale tana kooxda kubadda cagta ee Santiago lagu magacaabo ee ka dhisan MLS ka dhanka Mareykanka ayaa markaan waxay rabaan inay Kevin De Bruyne ka dulqaadaan kooxaha Sacuudiga siiba Al Nassr. ninkan ayaana haatan wada hadallo la galay naadiga lagu magacaabo Santiago wararka qaar sida sheegan. Marka ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne kooxda ka dhisan Mareykanka iyo kuwa Sacuudiga ayaa ku hardamaya oo waxay rabaan ninkan inay haatanba ka soo xirigeliyaan dhanka iyo Manchester City. dhinaca kale tana wararka weyn caawa waa Haaland ayaa doonaya inuu hadii uu City ka dhaqaaqayo ku biiro dhanka iyo Real Madrid. Haaland ayaa laacib si saa'id loo doonayo, laacibkan ayaana xiiso baan ka helaya dhanka Spain kooxaha ka dhisan sida Barcelona iyo Madrid. sidii haatan majalada caanka ee Mundo Deportivo daabacaysa waxay leedahay Haaland asiga ayaa xiiseynaya inuu ku biiro qalcadda Bernabeu xil ciyaareedka 2027 qandaraaskiisa markuu dhaco. hadii uu City ka dhaqaaqayo wuxuu doonayaa inuu ku biiro dhanka iyo garoonka Bernabeu ciyaartoy fara badan oo Galacticos ayaa dhawan Vini iyo Kylian Mbappe, Rodrigo iyo akhyaar badan ayaa weerarka Madrid haatan weestan. Haaland haday ku darsadaan Madrid cid hor istaagi karto ma jirtaba. isaga haatan wuxuu ku dareerayaa la leeyahay hadii uu City ka dhaqaaqayaba oo meel kale aadiyo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. hadii aad muuqaalka soo walaal garay kan ka subscribe noo saar goodbye.